السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to my channel Shakur 252 vlogs. ومقال كليا maanta oo aan tagayno road trip waxa weeye safar wadada ayaan tagaynaa insha Allah waxaanu ka dhaqaaqi doonaa magaalada St Cloud waxaanu ku sii jeednaa ilaa iyo magaalada Duluth waxa weeye waxay noo jirtaa ilaa 3 saacadood oo road oo highway insha Allah waxaan rajeynayaa inaan muuqaalo qurux badan aan soo duubi doono haddii la yiraahdo la socod wacan wanaagsan asxaabta qaaliga meel kasta adduunka daafiisa dacaladiisa aad ka joogtaan waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartaan like-na noo saartaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin so insha Allah muuqaalo ayaan soo duubi doonaa haddii la yiraahdo waxaan tagi doonaa lake weyn oo ku taala meeshaas oo la yiraahdo Lake Superior ayaan aadi doonaa insha Allah soo la socod wacan wanaagsan asxaabta qaaliga way noo iyo markaan gaadhno meesha insha Allah. Okay guys, station ka baan gas ka sii qaadan doonaa insha Allah kadib we hit the road wadada ayaan insha Allah sii mari doonaa markasta muhiimadda waxa iska la dadka waa in dadka ka istaagtiin Cravings, bacon wrapped pork loins are 4 for $5. Cool. So full tank idin ka dhignay insha Allah marka safarkeena hore noo sii wadan hadii la yiraahdo jawga aad buu qurux badan yahay anu markuu cirku roobku sidaa yahay daruuro markii sidaa yihiin aad baan runtii u jecelahay fiuga wadarkiisan qurux soo hadda highway-gaan saaranahay دكني سيداتو حبهات ماريو هيدرستي كاغاتان بابا دعانو waddankan ilaahay bulbusiiyey dhul barwaaqaysan weeyaanba maasha Allah qurux weeyaan innaba caadi maaha wadaduna waxa weeye god yar kama cabsanaysiin god yar gaarigu kaaga dhaco soo xagana istaagnay McDonald kan ayaa waxaan ka qaadanay cunto yar marka hore aynu sii socon doonaa safarkeena ay sii wadan doonaa insha Allah la socod wacan wanaagsan so McDonald kaasan ka soo baxnay soo hadda wadada ayaynu ku dhici doonaa insha Allah highway-geena sii saarnaan doonaa muddo 2 saacadood hadda McDonald ka waxa ka soo yar qaadanay hamburger iyo waxaan ka soo iibsanay kadib hore ayaynu sii socon doonaa insha Allah bismillah thank you McDonald waxa weeye hadda meeshii waxaan taagnaa hadda Canal Park South Lake Avenue ayaan hadda joognaa حويد مقالد إننا بعد معها ومقالد الحيس يعني سيدنا هرايد وكل شيء جبا واحد حدود لله ذي كندا مركا إلى ذلك كنديان كابا والحيس ماذا مركا واحد قط على كان ليك وين أو بدو كلا ده ما بقولون استمتعني والليك مياه مركا وحوي لكن بدبل مودا مركا هرايد نسيس عندنا إن شاء الله okay downtown-ki magaaladan soo galnay soo waxaan anu isleeyahay meeshan Soomaali ma degana soo hadii aad ka mid tahay Soomaalida halkan degan ama aad tahay Soomaali halkan degan farta tag commentiga ana degan soo qor waxa weeyaan kulay way jiraan Soomaali u dalxiis yimaada laakiin se uma malaynayo in community Soomaali meeshan ay degan yihiin hadii aad degan tihiin iscadeeya farta taaga dhay anaga degan magaalada Duluth anaga degan area-da Lake Superior anaga degan bal soo dhaha soo qora hada degantiin weeyaan
waxa weeye magaaladiina soo booqana waa hadda degan tihiin waa hadii Soomaali laga helayo but I don't think in Soomaali meeshan degan tahay sababtoo meeshan dad ladan oo qadeeya unba degan baan u maleynaya jawigeega waa arkisiin meesha quruxda Hollywood kiibad moodaaba Hollywood Okay, I know, I see. waan ka soo dhamaanay Lake Superior la dhahaa Superior miya waxa ku taala magaalada Duluth view inaba caadi maaha meesha hadda xagga hore nu sii socon doonaa waxaan sii yara dhaxmari doonaa magaalada sii dhaxmari doonaa mootadan aad u jeclay mootadan maarta inaba caadi maaha soo halkan in downtown ka taano marayn sababta aad biisu tahay meeshan u soconayba waa halkan wayna park raadiye markaa soo dadka waa inaad markasta muhiimadda siisaa iyagoo meeshii loogu talagalin ka talaaweyn haddana waa inaad ka istaagtaa inta ka istaagi karisid Mareykanka waa ii meel banaan oo dhar lagu iibinayo war meesha inaba caadi maaha waa meel dalxiis ah inaba caadi maaha dukaamada warkiis iska free waa sidii demool iyo waxaan baan arkay laakiin meelahan oo kale ma arkin ba adoo iska lugeynaya shay qurux badan baad arkaysaa kadib waad ku leexanay faraska xagga xada socda waa arkaysiin dadka dalxiisayaasha waa arkaysiin wow fardihii baa xataa iska soconaya meesha dadka dalxiisayaasha karaysanayaan ay raacayaan waxa loogu talagalay faraska qaybtaas isaga iska leh downtoonkaygu aad buu shidan yahay magaalada aad iyo aad buu qurux badan tahay so traffic light kan ayaan hadana bidix u geli doonaa kadib markaa baarka ma soo raadsan doonaa waxaan geli doonaa canal baarka meeshaas in geli doonaa markaas so baarka kan geli doonaa okay xagaan ku baarkin kareynaya markaa soo xaggaasan lacagta ka bixin doonaa baarkinka
oo meeshii imika canal park baan soo gaadhnay meel qurux badan weeyaan run ahaantii sidaad ka arkaysiinba magaaladu waa xaggaas ka bilaabmaysaa sida arkaysiinba bridge kan bay caan ku tahay meeshu canal park baa la dhahaa meeshan so bridge kaasi markuu uu markab weyn doonayo inuu dhex maro saasay isku kala furtaa yacni kor buu isku kala furaa dadkaasi doontaa yar bay isaga soo dalxiisayaan caawan bay soo noqonayaan haddana xaggan aan imanay oo la yidhaahdo Rose Garden oo iyaduna ku taala magaalada Duluth dhowr meelood aan maanta soo marnay soo halkan waxaa la yidhaahdaa Rose Garden baa la yidhaahdaa soo meel aad u qurux badan weeyaan soo sidaad arkaysiinba meesha waxaa la yidhaahdaa Rose Garden waa meel aad u qurux badan isku dayna inaan duubno meel aad u qurux badan weeyaan wow beautiful so markaa maanta waxaan ku jirnaa socdaalkeenii ahaa dalxiiska magaalada Duluth okay meeshan aad bay u qurux badan tahay soo halkan yar waa la iska fadhiisanayaa xaggan kalena leegtii baa ka xigtaa sidaad arkaysiinba quruxda waa arkaysiin xaggan kale leegtii baa ka xaggan tareenkii baa maraya tareenkan oo kii dadka way ku dad weli ma arkin baa wow beautiful xaggan ka imanaan markii hore joognayna waa taas bridge-ka dhinaciisa soo leegtan ilaa maraakiibtaa martaa inaad arkaysiin baan u malayn maayo marka baa xaggaasna soo socda run ahaantii waa meel aad u qurux badan beautiful place weeyaan magaaladan Duluth aad bay u qurux badan tahay aad iyo aad soo halkan iminkaan joogno waxaa la yidhaha Rose Garden soo waxaa ka arki kartaa view aad u wanaagsan baad halkan ka arki kartaa inkastoo oo xaggan cadceed dhici ay naga xigo oo magaranaysaa muuqaalku aanu aad u qurux badnaanin baan u malaynayaa laakiinse meeshu sideeda kale innaba caadi ma aha xaggana wadii ka arkay tareenkii baaba marayay hadda tareenka waa kiina dhaafay xaggaa horena waa xaggan marka hore ka imanay soo xaggan waxaa la yidhaha Rose Garden view aad u wanaagsan bay leedahay